munaasabadan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer Somaliland waxay qayb ka tahay munaasabado waaweyn oo lagu xusayo maalinta deegaanka adduunka ka qabsoomaya guud ahaan caalamka si gaar ah munaasabada maalinta deegaanka adduunka ee Somaliland lagu qabtay oo ka dhacday hotel guuleeda magaalada Hargeysa waxa diiradda lagu saaray helidda tamartii beddelka u noqon lahayd dhuxusha iyadoo munaasabadaasi shirkadaha ka shaqeeya tamartii Somaliland ay soo bandhigeen qiimo dhimis ay ku sameeyeen adeegyada dhinaca tamarta ay bixiyaan waxa munaasabadaasi ka qayb galay marwada madaxweynaha wasiir ku-xigeenno maareeyaal agaasimayaal guud hay'adaha ururada ka shaqeeya deegaanka ardayda jaamacadaha iyo marti sharaf kale agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer Somaliland Maxamed Cilmi Xuseen oo horinta halkaasi ka hadlay ayaa ka waramay qiimaha ay adduunka ugu fadhido maalinta deegaanka adduunka isagoo sheegay in 44 sano laga joogo markii caalamku isla qaatay maalintan taasoo looga gol lahayn bulshooyinka caalamka lagu jeediyo deegaanka wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer Somaliland Muro Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare oo halkaasi iyaduna ka hadashay ayaa mahadnaq u dirtay cid kastoo ka shaqeysa deegaanka iyadoo si gaar ah ugu mahadcelisay madaxweynaha Somaliland ay ku tilmaantay in digrootooyin fara badan oo u dhaqan galiyay kuwaas oo ku taxalluqa badbaadinta deegaanka waxa horta sharaf iyo qadarin mudan madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ee noo soo saaray ee noo qoray digrootooyinka iyo xeerkii u dambeeyay sanadkan soo baxay January 10keedii golaha baarlamaanada ee iyaguna isku taxallujiyay wasaaradaha nala shaqeeya ee si wanaagsan oo la wada shaqeeya iyo wasaaradda deegaanka shaqaalaheeda oo madaxda ka yahay DG-ga Maxamed oo ilaahay baa mahad leh meel walba isku taxallujiyay in ay gacanta saaraan maanta anaga hadalkan igama furra maanta kulay in badan baa la hadlay oo dadkii wixii noo sheegeen shirkadaha maanta halkan isugu yimi waan u mahad celinaynaa sida wanaagsan uga soo qayb galay iyo shirkadda soo socotay iyaduna inooga faa'iideyn doonta geedka garanwaaga ilaahay baa gidigood ka jisaysiinaya waa min wali Sheekh Maxamed Kirdi marwada madaxweynaha Somaliland halkaasi ka hadashay ay ka warantay muhiimadda xukuumadda Somaliland ay siinayso ilaalinta deegaanka dawladdu waa u diyaar sida idin gacan qaban lahayd sida idin la shaqeyn lahayd sida idin ku fududeyn lahayd cashuur dhaaf iyo wixii la mid ah laakiin kubaddu idinka idin la taala sida shacbiga Somaliland uga xaqabeeli lahaayeen inay dhirta badbaadiyaan ay gaas shitaan idinka idin la taal kubaddu insha Allah billahi kariim duulimaad kubaddiin ina macaasha shaan waayo waxa u furtay waa macaash laakiin dareenka iyo naxariista iyo arxanka dadkiina iyo idinka maqnaa dawladda Somaliland oo arrintaas ay wakiil uga tahay wasaaradda deegaanku waxa ay ka hawlgashay sidii loo dhiirin gelin lahaa isticmaalka geedka garanwaaga ama Prosopis la yiraahdo oo laga heli karo xaabo iyo dhuxulba taasoo bedel u noqon karta dhirta kale ee la gumaadayo wasaaradda warfaafinta Ismaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaan iyo ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga Xuseen Aadan Cige Xusarday ayaa ka hadlay isbeddelka ku yimid cimilada adduunka iyo sida ay saameynta ugu yeelatay guud ahaan caalamka iyagoo hoosta ka xariiqay xalka arrintaas lagu wajihi karo deegaan markaynu ka hadlayno runtii waxaanu ka hadlaynaa waxa weeye waxa mar walba saameyn ku leh cimilada waqtiga jirta cimilada adduunkuna waxa dhameynay waqtigan xaadirka aad isu bedelayso marka waxa soo jeedin lahayn kambaniyadu iyo iyagoo cid adduunyada kale kaashanaya dawladana kaashanaya sidii loo jibin lahaa gaastaas falowgeed la qabto waxa dhaba oo la huba mashaariicda adduunka dalal fara badan oo adduunka inay guul dareystaan sababta ay u guul dareystaana hadduu deegaan yahay iyo hadduu mashaariic kale oo loogu talagalay inay mashaariicda dalka wax u qabtaan ay yihiin sababta ay u guul dareystaan ma aha dhaqaale darro ma aha tiknoolajiyo xumaan ma aha dad aqoon la'aana oo maxaan ku dhahdaa aan meesha jirin oo aqoon maxaan ku dhahdaa aan lahayn runtu waxay tahay waxay u guul dareystaan wacyigelin la'aan bay u guul dareystaan haddaad kambaniyada tihiin iyo haddaad deegaanka ururadiisa tihiin iyo haddaad wasaaradda deegaanka tihiin warde annaga idiin hayna sidii wax loo fahansiinayay dadka annaga idiin hayna reediyoyoodii annaga idiin hayna dadkii tababarnaa ee maxaan ku idhaahdaa shaqadoodu ay ahayd inay wacyigelinta sameeyaan deegaanka iyo degalka ilaahay ku manaysay marka maanta oo ah 5 Juun dad badan oo adduunka ka mid ah waxay isweydiinayaan maxaa sababay in cimilada adduunku isbedesho bini'aadamku intee in leeg saameyn ku leeyihiin
maxaa laga qaban karaa isbeddelka cimilada adduunka. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiir dowlaha wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland Cabdiraxmaan Axmed Ismaaciil xubno ku hadlayay shirkadaha tamarta ee Somgas, Unigas iyo Sahal Gas iyo waliba xubno ku hadlayay afka hay'adaha iyo ururada caalamiga ee ka shaqeeya deegaanka iyo jaamacadaha dalka. gabagabadiina waxaa halkaasi wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Baadare ay shahaado sharaf u guddoonsiisay marwada madaxweynaha Soomaaliland Marwo Aamina Weli Sheekh Maxamed Jirdi. xuska munaasabadda maalinta deegaanka adduunka ee laga xusay Soomaaliland waxa uu noqonayaa xuska 44aad ee adduunka laga xuso. waxaana looga galeeyahay qabashada xusaskan si dunida iyo dadka caalamka loogu baraarujiyo qiimaha deegaanku leeyahay iyo sida ay u laashan lahaayeen. waa Cabdi Casiis Caydiid Cilmiye Samatar Maxamed Maxamuud telefishinka qaranka magaalada Hargeysa.